بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كليب كان waxaa iga codsaday dhalinyarada ahlu sunna wal jamaa ee TikTok iyo meelahaas jooga si macnaha kaliib kooban aan ugu duubo in nabiyullaahi Muhammad labadiis waarid aysan ahlu naar aysan ahayn bale in nabiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi ducadii nabiyullaahi Ibraahim iyo nabiyullaahi Ismaaciil uu ku yimid waalidkiisna ay ahaayeen dad muwaxidiin ah oo ilaahay kaliya yeelayo ducadii nabiyullaahi Ibraahim taasna adiladeedan saari doonaa masaladan ayadoo aad u sii waadaxsanna Facebook dad ka doonan karaan ka fiirsan karaan tan laakiin aan soo koobahaya insha Allah taala tii hore wax aan ku jirin oo ziyaadana waan ku sheegi doonaa tanna qoladaas hore dadka waxay u baahan yihiin midaan inay ka faa'iideystaan nabiyullaahi Ibraahim iyo nabiyullaahi Ismaaciil ayaa ilaahay bariyay waxay dhaheen rabbana ij'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka ilaahay aniga iyo wiilkayga ilaahu muslimiin naga dhig awlaadeennana muslim ka dhig sidaas ayay ilaahay weydiisteen durriyadooda in ilaahay muslim ka dhigo oo durriyada nabiyullaahi Ismaaciil inay tahay durriyada waxaad ku ogaanaysaa aayada qaybteeda ka ilaahay rabbana ba'ath fiihim ilaahu usoo bixi rasuulan rasuul oo minhum ayaga kamida yatlu calayhim kudul akhriya aayaadkaaga oo yucallimuhumul kitaabkana bara wal xikmata xikmadana bara marka durriyada la sheegayo waa durriyada nabiyullaahi Ismaaciil silsilada ku imaanaysa oo nabi maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu galayo sida uu nabiga u yiraahdo salawaatullaahi wa salaamu ana da'watu abi Ibraahim anigu waxaan ahay buu yiraahdo ducadii aabahay Ibraahim ayaan ahay oo ilaahay uu weydiistay in rasuul durriyadiisa laga soo saaro ducadii noocaas ahayd baan ku imid buu leeyahay rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa kale oo ku tusinayo in nabiyullaahi Ibraahim gadaashiisa ilaahay uu ballan qaaday inay dad ahlu tawxiid ay yihiin waxa ku tusinayso waja'alaha kalimatan baaqiyatan fi 'aqibihi ilaahay wuxuu yeelay kalimo baaqi noqonayso nabiyullaahi Ibraahim gadaashiisa waa tawxiidka la yiraahdaa waxa la yiraahdaa wuxuu soo raray Cabdurazaaq wuxuu soo raray tafsiirkiisana uu ku soo raray عن ابن معين عن قتادة ابن معين wuxuu ka soo wariyay qataadana uu ka sii wariyay ayadan hadda aan soo sheegnay inuu yiraahday al-ikhlaas wa tawxiid kalimada baaqi noqonayso waxa weeye al-ikhlaas amalka ilaahay loo baraxtiro wa tawxiid ilaahay oo la waxido la yazaalu fi durriyatihi nabiyullaahi Ibraahim durriyadiisa kama ay suulayso way man yuwahidu Allah qof ilaahay waxidahay wa ya'buduhu ilaahay caabudahay ka zuuli maayaan wa akhraja ibn mundirna wuxuu soo saaray qaala wuxuu yiraahday qaala ibn jurayj wuxuu yiraahday aayadiiba soo qaaday wuxuu yiraahday fi aqibi Ibraahim lam yazal fi durriyatihi nabiyullaahi Ibraahim gadaashiisa durriyadiisa ka zuuli maayaan man yuwahidu Allah wa ya'buduhu qof ilaahay kaliya yeelayo oo caabudahay ka zuuli maayaan aayadu sidaasay tilmaamaysaa oo biqawli laa ilaaha illa Allah sidoo kale ibn mundir wuxuu yiraahday qowl kale wuxuu ku yiraahday falam yazal naasun dad ka zuuli maayaan min durriyatihi durriyadiisa nabiyullaahi Ibraahim durriyadiisa cala alfitra fitrat alislam inay ku sugan yihiin dusheeda yacbuduuna Allah ilaahay inay caabudahayaan xataa taquuma saaca intay saacada qiyaama ay ka dhacayso sidaas ayuu hadana soo raray wa akhraja ibn jurayr fi tafsiirihi ibn jurayr tafsiirkiisa wuxuu ku soo qaaday quraanka waja'alaha kalimatan baaqiyatan fi 'aqibihi ilaahay wuxuu ka dhigay kalimo baaqi noqonaysa nabiyullaahi Ibraahim gadaashiisa qaala wuxuu yiraahday hadathani Muhammad ibn Sa'd qaala hadathani abi qaala hadathani ammi qaala hadathani abi an abi عن ابن عباس وحو كوري قوله أو وجعلها كلمة باقية في عقبه قال يعني خلفه نبي الله إبراهيم قداشي سوير معناه ابن عباس وقال أيضا حدثني محمد قال حدثني أحمد قال حدثني أصباط عن السدي في عقبه أرجاس في عقبها قال في عقب إبراهيم نبي الله إبراهيم قداشيس آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد آل كيسوي وهكذا اختار الله للنبي آباءه sidaas baa ilaahay u doortay aabayaalkiis wa ummahaati hooyooyinkiisna u doortay min daahirin ilaa tayyibin mid daahira ilaa mid tayyiba laga gaaro wanaagsan min tayyibin ilaa daahirin mid tayyiba wanaagsan oo daahira laga sii gaaro ilaa an awsalahu Allahu ta'ala ilaahay inta uu ka gaarsiiyay ilaa sulbi abihi Abdullah Abdul Muttalib abiis Abdullah ibn Abdul Muttalib inta uu ka gaarsiiyay dhabarkiisa macnaha wa minhu ilaa rahimi ummihi asagaas uu ka soo qaaday ilaa rahimka hooyadiis ee daahirada ahayd فأخرجه إلى الدنيا مركز إلهي الدنيا ذو صاري سبحانه وتعالى وجعله هذا كيالي سيد المرسلين مرسلين تسيد كذا كيالي وخاتم النبيين النبي ذا كي ختمها هنا كيالي رحمة للعالمين عالمك أصور رحمة وها عالمك معنا كالنبي الله محمد
sidaas ayuu u dhowrsanaa, ilaahay baana dhowray subxaanahu wa tacaala. aabihiis waxaaba dhacdayba inay isku daydeen nuurka nebiyullaahi maxamed ayaa saarnaa, dadkii horena way garanahayeen inay isku daydeen naagu inay macnaha ay tiraahdo xumaan iigu tag, nebiga aabihiisna uu ku yidhaahday inaan kaa sinaysto inaan dhintaan ka xigaabiyo. dadkaas ayuu ahaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh, waaridkiisa noocaas bay ahaayeen. ma ahan dad sifaaxul jaahiligii iyo zinadii jaahiligii iyo xumaantii soo maray. nebiga awowgiisna waad garanaysaa, waa markii lasoo galay abraha uu soo galay, uu rabay inuu kacbada dudumiyo. markii uu geeliisa uu qaatay ayaa wuxuu u yimid oo la yidhi ninkaan quraysh uu yacni madax u ah. markii uu yimaaday wuxuu weydiistay geelayga isii buu yiniyo. war nin dhan oo kacbadiisii iyo meeshuu ilaahay ku baryahayay aan kusoo duulay oo kacbadii inaan dudumiyaa aan rabaan baa tahay, geela iyo waxaad igala hadlaysa maxay tahay? markaasuu wuxuu ku yidhaahday anaa rabbul ibil, aniga geela ninkii leh aniga way, laakiin beydkan ilaahay baa iska leh, asagaana kaa dhacsanayuu yidhi. waa nebiyullaahi maxamed awowgiis. midka uu watay maxmuud baa la dhihi jiray, fiilkii ama macna maroodigii uu watay. mar allaala markuu dhanka kacbada u kaxeeyo waa diidahay, waa isu soo celinahay, ma ogolayn in dhankaas iyo kacbada loo kaxeeyo. sidaasuu ahaa awowgiis, nin ilaahay u aaminsan ayay ahaayeen. nebiyullaahi maxamedna anigu waxaan ahay fa anaa min khiyaarin waa isaga dhahay nebiga, dad akhyaara oo wanaagsan oo beyd wanaagsan ayaan ka soo jeedaa rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh. sidaasuu rasuulku ku faanahayay. marka rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu caleyh in maanta la dhiiqeeyo oo la yidhaahdo aabihiis iyo hooyadiis waa ahlu naar, wax nebiyullaahi maxamed qabatana maaha, wax dadka muslimiinta ah ay dhegaysan karaanna maaha. waxyaalaha waxaa ka mid a ninkan uu soo qaaqaatay rag ka mid a axaadiistii rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh oo uu nebiga yacni fabakaa wa abkaa man xawlahu, xadiidka uu soo qaadanahay nebigu wuu ooyay, asxaabtii inta gaararkiisaana waa ka oohaysiiyey. ilaahay baan waxaan weydiistay inaan macne hooyaday soo ziyaarto waana la ii idmay, laakiin waxaan weydiistay inaan dembi dhaaf u weydiiyo waana la ii diiday. xadiidkaasu kama muuqato wax la yidhaahdo hooyaday gaalay ahayd. nebigana hooyaday gaalay ahayd muusa dhihin, mushrikad bay ahaydna ma dhihin. ciddii marka mushrik ku tilmaanta iyo ciddii gaal ku timaada ayadaa ilaahay la hortegayso. laakiin nebiyullaahi maxamed afkiisa lagama hayo hooyaday mushrikad bay ahayd, hooyaday gaalay ahayd. mar haddaan nebi maxamed laga hayn, waxaad adiga ugu tilmaamtaa u tiraahdaa waa ahlu naar, waa been, waa dulmi. nebiga naartay ku jirtaana ma oran rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh. hal xadiis oo nebiga uu ku yidhaha hooyaday waa ahlu naarna ma soo helays, hal xadiis. marka dadka nebiyullaahi maxamed hooyadiisa naarta la aadahayo ayagaa ahlu naar ah, ayagaa ah. nebiga maba sheeginba inay hooyadiis ahlu naar tahay, nebiga maba sheeginba hooyadiis inay mushrikad ahayd, ma sheegin. marka qofka waxuusan nebiga dhihin dhahana dee asagaa dembigaas qaadanahay. laakiin xadiisku waxa uu keliya ku egyahay hooyaday inaan ziyaarto ayaan ilaahay weydiistay waana la ii idmay, inaan u duceeyana waa la ii diiday. hadda maxaa laga ducaynayaaba nebiga ahlu fatra ahayd hooyadiis. wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan baa ilaah yidhi, ma cadaabayno ilaa aan rasuul u soo dirno. ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahay litundira qowman, qowm inaa u digta nebiyullaahi maxamedow, maa undira aabaa'ahum aabbayaalkood aan loo digin, fahum haafiluun, ayaguna ay yihiin kuwa hilmaamsan, haafiliin ah. marka ilaahay baa wuxuu leeyahay waxaan kuu soo diraynaa inaan kuu dirnay nebi maxamed qowm aanan loo digin. ilaahayna wuxuu aayad kale ku leeyahay saan hore u soo sheegnaba, ma nihin kuwa cadaabahayo ilaa aan rasuul uga soo dirno. marka nebiyullaahi maxamed hooyadiis iyo aabbihiis rasuul loo soo diray oo ay beeniyeen miyaa jira? ayagaan weydiinaynaa. rasuul loo soo diray oo ay beeniyeen miyaa jira? maya. jawaabtu waa maya. haddaan rasuul loo soo diray ay beeniyeen aysan jirin, see ahlu naar ku noqdeen? waa ma jirto. nebiyullaahi maxamedna asagoo yar bayba dhinteenba kulligood. mideeda kale waxaa haddana kuu diidahayo nebiyullaahi maxamed inuu qof mushriga gaal qabrigiisa dul istaago waaba loo diida. ilan hooyaday inaan ziyaartaan ilaah weydiisto waa la ii idmi, waa sax, waa loo idmi, wuu tegey. ma mushrikad baan ilaahay u idmi lahaa? maya, uma idmaayo. maxaa yeele ilaahay baa qur-aan wuxuu ku yidhahda walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan. nebi maxamedow ha ku tukanin oo ha u ducaynin mid dhintay oo ayaga ah, kuwan gaalada ah, munaafiqiinta ah. walaa taqum calaa qabrihi, qabrigiisana haba istaagin baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala. weliga waxaa samaynin saas baa layidhi. maxaa sabab? innahum kafaruu billaah, ilaahay bay ku kufriyeen subxaana wa tacaala, wa rasuulihi, rasuulkiisa ayay ku kufriyeen, wamaatuu waa dhinteen wahum faasiquun, ayagoo faasiqiinahay dhinteen. hayadda qur-aankaaba kuu sheegaysa. marka nebiyullaahi maxamed aayaddaanaaba diidaysaba. marka ma suuragal baa nebiyullaahi maxamed ayadoo ilaahay uu yidhaahday qabri qof gaal ah ha istaagin ayadoo la yidhi, miyuu ilaahay ka baryey inuu qof gaal ah oo hooyadiis ah uu markaas uu dhaho aan soo booqdo?
waa maya warka xaqiiqadiisa waxay tahay maya waa been marka meeshan gaalnimo ma taalo hooyadiis iyo aabihiis midna gaala ma ahayn lagumana tilmaami karo ahlu fatray ahaayeen ahlu fatradaas wax ayaga ka gooni yeelo cadaab gooni ayaga u yeelay ma jiraan inta ahlu fatrada xukunka ay leeyihiin oo kale leeyihiin iska badaaya inay taas leeyihiin waxa ma soo sheegnaba inay dad ahlu tawxiid ay ahaayeen sida aayaadka quraanka hadda idin soo sheegay ay cadaynayso nabiyullaahi maxamed iyo hooyadiis dadku waxay ahaayeen ahlu tawxiidka oo tawxiidka haysto waxaad ka ogaanaysaa awowgiis waxa ka ogaanaysaa ayagaba inta way ahaayeen marka dad waxay ahaayeen toosan oo wanaagsan oo dhowrsan ilaahay u dhooray oo ducadii nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil qabay ahaayeen nabigana sidoo sheegay inuu dad wanaagsan iyo nasab wanaagsan uu ka dhashay oo wada wanaagsan uu ku dhashay sidaas ay ahaayeen marka cidii intaas ku fuudaanaysa ayagu taala marka waxaan ku soo koobahayaa nabi maxamed hooyadiis iyo aabihiis ahlu naar maaha waxa ahlu naar intii nabi maxamed hooyadiis iyo aabihiis ahlu naar way dhahayso hadiis iyo aayad marka iska hor imaadaana aayada la hormariyaa xukunka aayada la qaataa afarta shay oo wax loo daliishado waa kitaabka quraanka sunnada rasuulka iyo ijmaaca iyo qiyaaska saddexdoodana sida hadda u sheegay u kala horeeyaan aayada la qaadan kow xadiis ka ku xiga labo ijmaaca ku xiga saddex hadii la kuuran yahay qiyaaska ku xiga marka hadii aayad iyo xadiis iska hor imaadaan aayada la qaadanaya culimadu wayna daaweynayaan hadii ay daaweysmi karto oo waa midaan ku soo daaweynay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi abi wa abuka fi naari muxaadarada kale si fiican uga dhargeysay taa waa la daaweeyay aayad quraana wax ay tilmaamtay oo kale xadiiskan la mid yahay oo aabaha adeerka in mararka qaar kood aaba lagu magacaabo xadiiska asagoo wax badan laga sheego xadiisku uu yahay xadiis khilaafay nin thiqa oo khilaaf si kastaba ha ahaatee halkaas aad uga bogan doontaa insha Allah ta'ala yaan in ku badinin kilibka waxaan ugu talagalay asxaabta TikTok aad iyo aad baan idin salaamahay insha Allah ta'ala ka digtoonaada inaad rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi u gaftaan aabiis hooyadiis inaad naar ku tilmaamtaan inay ku jiraan iska jira hada wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh